Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka soo dhawaaw kanaalka dhammaan taariikh. Greenlandi, jasiiradda barafka ee qarniyada soo jirtay. Dhul aad u qabow. Buuro baraf ah oo aan dhammaad lahayn iyo taariikh qarniyo badan soo taxnay. Kani waa Greenland, jasiiradda ugu weyn dunida oo in ka badan sideed eber dhulkeeda uu daboolo baraf qaro weyn. Laakiin su'aashu waxay tahay sidee ayay dadka ugu noolaadeen dhulkan qabow? Maxaase ka dhigay Greenland meel taariikh gaar ah? Kumanaan sano ka hor dadkii ugu horreeyey ayaa ka soo tallaabay waqooyiga Kanada iyagoo raadinaya nolol cusub. Waxay la qabsadeen qabowga daran waxayna ugaarsi iyo kalluumaysi ka dhigan jireen ilaha ugu muhiimsan ee noloshooda. Qarnigii 13 dadka Inuit ayaa noqday bulshada ugu weyn ee Greenland. Waxay dhiseen dhaqan hodan ah oo weli ilaa maanta qayb weyn ka ah aqoonsiga dalka. Sanadkii 982 miilaadiga badmaaxii caanka ahaa ee Vikinga Erik Terred ayaa yimid Greenland kadib markii laga masaafuriyey Iceland. Wuxuu u bixiyey magaca Greenland oo macnihiisu yahay dhul cagaaran. Waxaa la rumaysan yahay inuu magacaas u doortay si uu dadka ugu dhiirigeliyo inay u guuraan dhulkan cusub, inkastoo inta badan uu ahaa baraf. Muddo kooban ayay Vikingiyadu degeen Greenland, balse ugu dambayn deegaanadoodii way dabar goyeen sababo la xiriira cimilo isbeddel, godoon iyo dhibaatooyin nololeed. Qarnigii 18 Denmark ayaa dib u aasaastay gumaysigeeda Greenland, waxaana muddo dheer uu dalku ka tirsanaa maamulka Denmark. Sanadkii 1953 Greenland waxaa si rasmi ah looga dhigay qayb ka mid ah boqortooyada Denmark. Laakiin shacabka Greenland waxay sii wadeen dadaalka ay ugu jireen inay helaan maamul ballaaran. Sanadkii 1979 Greenland waxay heshay ismaamul rasmi ah. Kadib sanadkii 2009 awoodaha dowladda Greenland ayaa si weyn loo kordhiyey iyadoo maanta ay maamusho inta badan arrimaheeda gudaha halka Denmark ay weli mas'uul ka tahay difaaca iyo arrimaha dibadda. Maanta Greenland waxaa ku nool dad tiro yar balse waxay leedahay dhul dabiici ah oo cajiib ah, baraf aan dhammaad lahayn, buuraha waaweyn iyo xayawaan sida orso cadeedka, nibiriga iyo seelka. Waxay sidoo kale hodan ku tahay khayraad dabiici ah kuwaas oo mustaqbalka door weyn ka ciyaari kara dhaqaalaha dalka. Greenland ma aha oo keliya jasiirad baraf daboolay. Waa dal leh taariikh dheer, dad adkaysi badan iyo dhaqan soo jireen ah oo weli nool. Marka xigta ee aad maqasho magaca Greenland, xusuusnow in barafka hoostiisa ay ku qarsoon tahay sheeko soo taxnayd kumanaan sano. Mahadsanid daawashada. Haddii aad ka heshay dokumentarigan, la wadaag dadka kale si ay iyaguna u bartaan taariikhda cajiibka ah ee